maraykanka oo la sheegay diyaaradihiisa dagaalku inay mar kale duqeeyeen saacadihii lasoo dhaafay yeman waxay sidoo kale bartilmaameedkoodu ahaa inay burburiyaan goobo ay sheegeen inay xuutiyiintu maamulaan oo ku yaala gobolka sacda. gobolka sacda wuxuu ku yaalaa waqooyiga dalka yemen. waa gobolkii markii hore jabhadda xuutigu ay ka timid oo xuutiyiintu ay ka yimaadeen intaanay qabsanin qaybo badan oo ka mid a yemen. wuxuuna gobolkaas sidoo kale dhacaa xadka sacuudi arabiya. haddaba waxaa la sheegayaa markaa in bartilmaameedyo muhiim ah ay sheegeen maraykanku inay halkaa ka duqeeyeen, laakiin xuutigu waxay sheegeen in weerarkaasuu ahaa mid cadowtinimo ah, dad raydana ay wax ku noqdeen. waxayna sheegeen inay iyaguna sii wadi doonaan aargudashada ay ka aargudanayaan maraykanka. dhanka kale afhayeenka xuutiyiinta yaxyaa sariic ayaa isaguna war uu soo saaray saacada ka hor waxa uu ku sheegay inay fuliyeen 2 weerar oo kala duwan. weerar ay ku qaadeen magaalada Tel Aviv airportka la yiraahdo Ben Gurion iyo weerar isna ay ku qaadeen maraakiibta dagaalka ee maraykanka ee ku sugan badda cas. haddaba waxay sheegeen in marka hore ay gantaalka la yiraahdo Falastiin 2 ee plastiga ah ay ku weerareen airportka la yiraahdo Ben Gurion, isla markaana ay sheegeen inay la heleen. yaxyaa sariic wuxuu dhanka kale sheegay inuu digniin u dirayo diyaaradaha rayidka ee isticmaala airportka Ben Gurion. wuxuu sheegay ogaada airportkaasi nabad maaha ama ammaan ma ahan uu yiri. mar walba ayaynu ka soo adeeganaynaa la socda ciddii ku soo xadgudubta oo isku tagta hadday madaafiicdeenu ku dhacaan iyaga iyo rakaabka saaran ciddii ugu salaamo waayo. marka waxay yiraahdeen ha laga feejignaado diyaaradaha rayidka ee halkaa tegaya iyaysan u dhowaanin. fariintaas waa midii ugu cuslayd ee uu xuutiga bixiyo. waxaa lala yaaban yahay marka dadka israa'iiliyiintu la yaaban yihiin sababta xuutiga gantaalihiisu ay mar walba uga soo dusaan hanaanka difaaca gantaalaha maraykanka iyo israa'iil iyo ingiriiska iyo dowladaha yurub ay u sameeyeen israa'iil. inkastoo israa'iiliyiintu ay leeyihiin waa ka hortagnaa, laakiin sax ma ahanay leeyihiin. dadka doodaha ka qaybgalaya barnaamijyada israa'iil waxay leeyihiin waxaasu sax ma ah. airportka saacado ayaa waxaa la joojiyey shaqadiisa. marka hawada israa'iil waxaan soo gelin oo la qarxiyay ma airportka shaqadiisa loo joojinaya leeyihiin maya. arrinkan waxbaa la qarinaya leeyihiin. meesha nimankanu waxbay naga qarinayaan, ciidanka waxay leeyihiin waxbay naga qarinayaan. haddaba marka iyaduna hawshaas halkaasay maraysaa. xaalku marka halkaasu maraa. nimankii xuutiga waxay dhanka kale sheegeen inay maaragtay diyaarado drone ah ku weerareen raxanta maraakiibta maraykanka ee ku sugan badda cas. mar kale ayaan weerarnay yidhaahdeen. markan waxaan u isticmaalaya diyaarado drone ah oo kuwa isqarxinaya. marka iyaguna jugta gaartay waxba kama hadlaan maraykanka. nimankanuna waxay yidhaahdaan meel walba waa siday taa uga adeegana bifadlilaahi waa ku guulaysanay ku leeyihin. marka xaalku marka bariga dhexe waa bariga dhexe meeshaasay maraysaa xaaladu. marka xaalku halkaasuu maraya. waa ka gudbaynaa qodobkaas. dhanka kale Gaza warar cusub ayaa kasoo kordhay. saakay ilaa xalay duqeymo ayay israa'iil ka geysanaysa meelo kala duwan. dadka rayidkaana dhibaatadii dhimashada iyo dhaawacii way kusii kordhayaan. dowladaha ingiriiska, jarmalka iyo faransiiska ayaa baaq wada jira ay soo saareen. waxay ku baaqeen in xabad joojin degdega la sameeyo oo lagu laabto xabad joojintii. waxay yidhaahdeen wax aan la fiirsan karin ayaa meesha ka socda oo ah dhibaatada lagu hayo oo soo gaaraysa dadka rayidka falastiiniyiinta. marka waa in arrinkaa loo istaagaa sidii xabad joojintii loogu laaban lahaa. marka waxaa leeyahay yaa ka dhagaysanaa netanyahu oo fasax ka haysta trump oo isu haystaa kaabaha adduunka inuu yahay. hadda marka nimankii yurubiyanka iyagii ma yaa dhagaysanayaa la leeyahay. wax dhagaysanaya marka ma jiraan. haddaba waa arki doonaa wixii arrimaha iyaguna wixii kasoo kordha. dhanka kale waxaa la sheegayaa ninka trump u qaabilsan arrimahan bariga dhexe waxaa la yidhahdaa Witkoff ayaa waraysi laga qaaday.
saacadihii lasoo dhaafay aadaa waraysigiisu muhiim u ahaa arrimo muhiim uu ka hadlay wuxuu yidhi waxaanu la hadalnay xamaas netanyahu iyo iiraan sheekaa idinkaga hayaa uu yidhi nimanka xamaas ah waxayba taagan yihiin cidaan annaga ahayn oo maamulaysa gaza maba jirta dheh cirka gala ama dhulka gala ama jaxiimada aad sheegayseen keena ama iska dhaafa meeshaan annagaa maamulaynayna dheheenu dhahay waxaa rabtiin keena waxaan ka baqayno male macnaheedu muxuu yahay annaga meeshaan annaga aan maamulkeeda annagaa haysanayno hub iska dhigayo halkaa ku lugeeyayo inta ka baxa iyo idinkaa sheegaya dheen annagu meeshaan maamulkeeda annagaa maamulayno haye annagu marka wuxuu yidhi marnaba marka ma aqbalayno maraykan haddaan nahay in xamaas ay joogto maaragtay gaza oo ay maamusho ma ka yeeleyno xamaasna maxay rabtaa gaza inay maamusho rabto marka arrinkaa waa isku khilaafsan oo dhahay arrinkaasu marka wuxuu dhahay waxyaabaha dagaalka dib u qarxiyey ayay ka mid tahay marka sheekada maba joogtuu dhahay meel dhexe iyo waxa kan nimanka xamaas lee waxayba taagiyiin meesha annagaa maamulaynaydin dhulkeenni waaye ma maamulaysiin maxay ilaahay baana siiyey dhulkaan annagaa leh annagu maraykan maa idinku haysanaa ma meel kale idinku haysanaa may kan annagaa iskale annagaa maamulanaynaa mid hadday shacabkeenuna diidaan waa iska baxaynaa shacabka reer gaza hadday annaguna diidaan oo yidhahdaan xamaas ma rabno waa baxaynaa laakiin shacabkeennoona jecel oona raba dhulkeeniyaan joognaa xaggee uga soconnaay dhehen meelaa uga soconna male ninkii marka dadku uu ka yaabiyey witkofka ah arrinta netanyahu markuu ka hadlaya iyaduna xiisee lahayd wuxuu yidhi netanyahu ninka la leeyahay waaba nin yaab loo dhahay dagaalka gaza inuu galo ayaa waxay maaragtay uga fiicanta u yidhi maxaabiista iyo soo dayntooda inuu ka shaqeeyo waa imtixaan wuxuu dhahay dadka laga haysto culays maba saarooyaba ninkaan xamaasaan aan dhabarka ka jibina xamaasaan dagaal inuu aadayba ka go-an tahay sababo siyaasadeed darteed waa tii la sheegaya lalahaa ninkan dowladdiisa inay dhacdu ka baqayo hadduu dagaalka ku laaban waayo dadkaan la haysto maxaa ka galay asagoo cunugu dhalay lama haystee waxa la haysta male ninkaas marka waa saas waxaa hataa isku daynuu yidhi oo fiirsada waxaan isku daynay qorshihii carabta ay keentay reer gaza iyagoo dhulkoodii jooga in maaragtay dib u dhis lagu sameeyo gaza nabad ilaalin la geeyo hawshaas sidaa loo qabto xamaas maamulka tartiib ay ku wareejiyaan niman kale qorshihii carabta ay keeneen xataa waa ka dhaadhicinuu dhahay netanyahu waa naga diiday waxaaba u caddayd uu yidhi dagaalka inuu galo dagaalka inuu shab dhaho aa u caddayd waana galou dhahay dagaalka marka wuxuu ka keenaa la arkaa yidhi meeshaas halkaasii bartee nimankii iiraaniyiintaana wuxuu sheegay inay maaragtay u sheegeen awlaadeeda meelaha daadsan inay ka takhlusi doonaan oo maraykanku ka takhlusi doono iyagana uu imaan doono haddaysan nimankaa wakallada ama wakiiladeeda ama awlaadeeda gobolka awlaadeeda waa xuutiga iyo xisbullah iyo nimankaan waaye marka waxay dhahaan nimankaas haddaan la qaban xaalku halkaasu markaa uu marayaa arrinta nuclearkana waa kala hadalnoo dhahay waa digniin aan u dirnay marka ninkaas sheekooyinkaas cajiibka ah ayaa laga waraystay oo uu saddexda dhinacba uu ka sheegay haddaba nimanka israa'iiliyiinta ahaa meel walba waa duqaynayaan hadda xalay waxay duqeeyeen 2 saldhig oo ciidanka suuriya ay leeyihiin ayay weerareen markaasay duqeeyeen waa yaab waa layska baxaa dowladda layska weeraraa waa layska duqaynaa wax carab oo hadlaa male in waa cambaareynay adduunku wax ka qabta inay dhahan maana ma jirto suuriya dhibaata haysata nimankii suuriyaanka ahaa ee dowladda ahaa iyagoo lugahooda isku taagin ayaa nagta lagu hayaa xalay israa'iil weeraray qaaday 2 saldhig oo ciidanka suuriya ay leeyihiin ayay maaragtay soo garaacday qaar ka mid a ciidankii suuriya ayaa ku dhaawacmay marka waa sheeko yaab leh maxaa loo weeraray khatar aan ka baqaynaa inay meesha ka jirtay oo nimankanu hub culus iyo waxaas ay meesha ku haysteen oo nimanku soo dowlad ma ah soo waddankooda iyaga ma leh soo hub ma haysan karaan may hub ma haysan karaan
darisaan nahay hub weyn iyo waxaas haddee la yimaadaan anagu khatar nagu yahay marka inta aysan waxaas keenin anagu aan garaacayna oo adinku maxaa tihiin israa'iilana la yidhahdaa qaramada midoobay ma ka baqayaan golaha ammaan wax leeyahay ma jiraan ciday wax weydiinayaan male way iska weerarayaan nimanka nagtay ka saarayaan sheekada marka la yaab kale Suuriyaanka ay aad u hadalayaan waxay tahay heshiiska Turkiga iyo Suuriya maxaa hortaagan ilay heshiis waxaa jira miiska saaran oo Turkida loo ogolaanayo inay saldhigyo ka samaysato gudaha Suuriya oo ay difaacdo hawada Suuriya heshiiska maxaa diidan dawladda Suuriya maxay u saxiixan laadahay Turkiga maxaa hortaagan dhowr arrimood marka dadka wax falanqaynaya ku sifeeyeen waxay yiraahdeen Turkiga hadduu meesha galo khatar inay dhalataa laga baqaa marka nimanka Suuriyaanka nimanka reer galbeedka ay kuwan ayaa waxay yiraahdeen arrinka u kaadiya xalan raadinayna xal maxal raadinaa maalin walba Israa'iil way maanaysa nagtay ka saaraysaa cid kale oo nimankan u soo gurmanaysa lama arko cid ka dhicinaysa male wareerkaas taagan marka hawshaas iyaduna halkaas ay maraysaa war goordhow soo dhacay isaguna wuxuu sheegayaa wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil inuu leeyahay Gaza dhan waa qabsanaynaa anaga qaadanayna dadka jooga hadee bixi waayeen ayay u taalaa qorsheena waa degsan yahay xukun militariyaana ka sameeynaa qof generaal oo Israa'iil ciidankeeda ka tirsan maamuli doona meeshaas anaga qabsanayna hawshaas ay leeyihiin nimanka Xamaasana way gamban yihiin duqayna socota ciidanka Israa'iil boolxoftay wadaan geesaha taangiye soo gelinayeen way ka baxayaan nimankan wali ma maqlaysid Al-Yaasiina soo baxay wax ka adeegtay iyo ma jirto waa la soo gamban yahay dagaalka dhulka ahaa wali si fiican la isuma farasaarin waxba la kala bartay 15 bilood anagta la isku hayay marka hadda nimankanu farsamooyin ku maqan yihiin Israa'iil laftirkeeda ayaa ban waxa leedahay nimankan aan xabad idinku soo ridayn Al-Yaasiin idinku soo ridayn idin soo aadeen maxay damacsayn ma intaan maqnaydeen ayay godad dhulka hoostiisa inta ka wada qoteen hal mar idin soo bixin rabaan ayagii yaaba shakiisa sheeko walaal halka ka socod barnaamijkeygii subaxnimo saaka waa laga inta subaxnimo sabti ah fadlan hadaad ku cusubtahay